بسم الله الرحمن الرحيم وكلنك iyo casharkeeni lixaad insha Allah maanta ayaynu sii bilaabi doonaa halka waxaan ka bilaabi doonaa maalinta hore inagu joogtay November 20 sida barta ka muuqata dheedka account receivable oo aynu helay oo ahaa in account receivable aan sameynay tiin naga maqanayno cid ku yaranay oo 1800 ahayd ka revenue-ga oo isaguna ahaa 1800 maanta insha Allah waxaan ka bilaabinaa November 25 waa cash ayna soo galay oo 600 ah cash kaasi xagoo inaga soo galay account receivable weeyaan account receivable waxa weeyaan waa deyn naga maqnayd hadaba waxa meesha taala sidii baad ugu kala qoraysaa cash waa asset kaagi ay kamid tahay hantidaadi bay kamid tahay hadii aad dabeedna istiraahdo cash markuu soo gasho halkii baad ku qoraysaa waxa isweydiinaysaa chart of accounts-kii 6 ahaa halkii bay hoos galaysaa waxa hoos galaysaa asset-kan hadaba dhacdadan lafteeda markaad ka hadlayso miyuu kordhay mise asset-kaaga u yaraaday waxaad leedahay maadaama ay cash soo gashay uu kordhay asset-ku halkii ka kordhaysaa debit-ka dadna debit side-ka ayaad ku qoraysaa qaybtaas waxa kale oo iyadana meesha taala account receivable waa maxay waa asset-kaaga miyay yaraatay mise kordhay deynta dad ku lahayd maadaama ay soo bixiyeen 600 soo bixiyeen deyntii miyay yaraatay mise way ku kordhay maya waxaad isweydiinaysaa deyntaas way yaraatay weeyaan dabeedna waxaad ku qoraysaa maadaama deyntii yaraatay asset-kana ahayd asset-ku wuxuu ka yaraanayay credit-ka dadna labadaas saas ay isku balance gareynayaan cash-kii oo 600 ah oo asset-kaagii ah oo kordhay sababta debit-ka ugu qortay waa sidaas account receivable-kaagii oo deyntii ciidaad ku lahayd oo asset-kaagii ah way yaraatay maadaama dadkii keeneen waxaad ku qoraysaa marka credit-ka oo waa deyntii oo yaraatay waana asset-kaagii waa deynta dad ku lahayd oo account receivable marka hadii jeer waxa dhacday in account receivable iyo la isku qaldo account payable labada kelmadood ay ku kala cadeynaya horta labada kelmadood hore waa account iyo account iyo waa isku mid laakiin receivable iyo payable waa labada kelmadood kala saaraya receivable waad heli doontaa way ama waad inaad helaysaa meesha ka cad account payable waxa weeyaan waa payable waa kugu qasab waa inaad bixisaa weeyaan marka maadaama iska bixinayso payable ka ayaa noqonaya deyntii lagu lahaa receivable ka heli doontaa waa deyntii adigu aad cid ku lahayd marka journalizing-kii hore soo dhaafnay waxaan jeedaa transactions-kii oo la sharaxayo sidaan aynu u soo wadnay 20 maanta hore inagu joogtay 25 marka waa kan imika record garaynay internal journal arkini waxaan leeyahay November 25 kii receiver waxaan helay cash 600 in a partial collection waa qayb ahaan baa la soo ururiyay of the account receivable from the sales tools maadaama maanta inta iibinay ku qoran November 20 tools-ka inay 1800 ah ee la soo ururin doono sida halkan ugu caad wada 45 days 45 cisho ayaa qayb kamid ah ay keeneen qoladii aynu siinay deyntaas 600 bay iska soo bixiyeen waa partial collection marka waad qoraysaa receive inaad cash shay oo debit-ka ay galayso receivable-kaagii dadkaad ku lahayd deynta dad ku lahaydna inay yaraatay iyaduna credit-ka galayso waxaan ku xigsiin doonaa November 30-ga paid waxa la bixiyay 6800 partial payment account payable waa qayb baynu inaguna iska bixinay deyntii la inagu lahaa baynu iska bixinay deyn hore la inagu lahaa ayaynu qayb kamid ah bixinay 6800 baynu bixinay sidee baa loo joornaal gareynayaa ayay noqonaysaa horta deynta lafteeda November 30-ga 6800 aynu eegno account payable hore ayaa jiray deyn la inagu lahaa meelahan baan ka helaynaa waatan taas November 5 ka ku qoran iyada waxa weeyaan waa note payable iyada maaha on account waa kan purchase tools alaabeynu soo iibsanay equipment iyo qalab on account waxaynu ku iibsanay on account hadda aragtay waa payable waa deyn waxaan ku soo iibsanay markaas 13800 taas aynu partial payment sameynay oo qayb ayaynu bixinay 6800 ah waynu journal garaynaa sidoo journal garaynaa waa tan November halkan waxa ku qoran November 30 account payable deyntii la inagu lahaa deyntu waxay ka kordhi jirtay liability bay heedo waxay ka kordhi jirtay credit-ka maadaama aynu iska bixinay imaka may kordhin way yaraatay marka 6800 baynu iska bixinay oo yaraaday waxay marka ka go'aysaa hadii jeer credit and debit way kala go'aan mid buu balance-keeda soo haraa account payable-kii hore ee ku jiray credit-ka ayuu ka go'aya baaqiga inagu soo harayna halkaas ayuu ka muuqanaya insha Allah maadaama aynu account payable sameynay 6800 ah oo deyntii naga yaraatay maadaama intaas ka bixinay cash-keeni halkeen ku qoraynaa cash-keeni waa asset
asadkii maadaama aynu bixinay way inaga yaraatay asadkeenii dabeedna waxaan ku qoraynaa credit side-ka waxa lagu qori jiray markii asadku yaraato hantidaadu hadday yaraato credit side-ka ay gelaysaa waanay ka baxaysaa oo ka go'aysaa hantidii hore u haysatay kaashashkaagii hore ka go'aysaa tani lacagaagaad hore u haysatay journalizingkii ayaa bartaa ku eeg oo November 30 baynu kusoo gabagabeynay sida balantu ahayd 10 kuma tilmaamayay 30 casho bisha diiwaangelinna bisha xisaab xirkeedina waan sameynaa insha Allah intaas ayaynu journalizingkii maanta kaga gudbaynaa insha Allah maalinta dambe waxaan sameynaa wax post la yiraahdo waa aniga Khalid Cabdi Gaxnooga waxaan ku salaamay islaamka ardayda qiimaha ee sharafta leh intaas ayaan kusoo gabagabeynaa waa inoo 10 kale insha Allah waan ku sameynaa wax la yiraahdo posting iyo trial balance insha Allah. Assalamu alaykum.